السلام عليكم سو dhawaad saaxiibayaal waxa aad la igaga wacayo maartay liigu mishoon gareey meelo badan safarkii Hiiwo Maxamed ee ku tagtay gobolada waqooyi ee Soomaaliya iyo sidii loo soo dhaweeyay arintaas maartay soo dhaweynta Hiiwo iyo maartay hawlahaas waxa ku jira arrin badan oo muhiim ah oo wanaag badan ku jira in la zul taagan ay tahay Hiiwo 10 sano ka hor waxa ay timid magaalada Muqdisho oo ay maartay waqti joogtay marka aad fiiriso sidii loogu soo dhaweeyay Muqdisho iyo sidii loogu soo dhaweeyay Hargeysa waxa u dhaxeeya farqi aad weyn oo waxa aad wanaagsan soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Hargeysa qofka da'da ah ee in badan ka maqan dalkiisa marka uu ku soo noqdo waxa uu u baahan yahay ma aha kaliya maaragtay cunto iyo maaragtay hoteelo waaweyn iyo maaragtay in loo muujiyo in la jecel yahay oo la taageersan yahay ee intaas waxa uga muhiimsan oo jecel yahay inuu arko dadkii uu yaqaan iyo meelihii uu yaqaan qof lama noolaan karo maalmo badan dad isaga una garanin kaliya isaga ay garanayaan Hiiwo xamar markay ay timi waxay maaragtay ku jirtay kaliya hoteelo iyo maaragtay xaflado iyo soo dhaweyn noocaas laakiin soo dhaweynta Hargeysa loogu sameeyay waxay muujinaysaa dad yaqaanida maartay inooga wanaagsan yihiin qoliyaha waqooyi Hiiwo waxa la kulmay dadkii ay taqaanay oo yaraanteedii la soo shaqeysay ayaa loo ballamiyay oo inuu kula kulmin xamar waxa ku noolaa dad ay taqaanay laakiin fursad uma helin inay aragto Hargeysa waxay ku aragtay abwaanadii waaweynaa oo maartay dacar ku jiro Cabdiqays ku jiro xasagani ku jiro waxa maartay kaloo la yaab lahaa xafladii maartay uu u sameeyay Maxamed Kaahin ET uu sameeyay gudoomiyaha magaalada xafladda maaragtay inuu muuqdo uu sameeyay Hiiwo waxa maaragtay quruxda u yeelay waxa Hiiwo iyo maaragtay lagu kulmiyay halkaasi Saalax Qaasim Saalax iyo Hiiwo waxay leeyihiin taariikh fog oo labadu u gaara oo xusuuso badanna ku jira waxay wada leeyihiin heeso badan iyo riwaayado badan oo ay ka mid tahay doob qalanjadii gabay qoliyaha waqooyi waxaad muujiseen dad yaqaanida iyo soo dhaweynta qiimaha ay leedahay sidaas ayaa qof kasta oo maaragtay dal iyo dad uu ka maqnaa in loogu soo dhaweeyo uu jeclaan lahaa inagoo aan da' badan hadda noqon wari dhalinyarnimada baaqi ku ah ayaa waxaan jecelnahay dadkaan maaragtay yaraan ku naqaanay iyo meelihii aan ku soo kornay aan ka jecelnahay hoteelada waaweyn iyo maaragtay xafladaha noocaas ah waxaan leenahay Ilaahay cimrigooda ha raajiyo howladeena iyo hal abuuradeena umada maaragtay koonfureenna waxaan leeyahay waxa ka bartaano umadaha waqooyi. Assalaamu calaykum.